ciidanka qarankuna inuu isdifaaco awood buu leeyahay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland marna weerar ma qaadin cidna muu doonanin waxa uu ku joogay xabad joojintii lagu amray ee dawladdu ku amartay in la sameeyo doona xabad joojin inta ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku joogay iyaga jabiyay weerar bay soo qaadeen saaka weerarka ay soo qaadeen way ku jabeen ciidanka qarankuna uu isdifaacaya mar walba dagaalka waxaan u aragnaa saan horeba u sheegnay inay siyaasado kale dawladda ka riixayaan oo al-shabaab dawladda ka riixayso saan horeba u sheegnay Puntland kama madna ciidankeedii baa jooga ka tirsanaa Puntland oo la wada garanayo oo haddii cadayn loo baahdo aan hayna cadayntiisii oo maxay idin kamid ah dagaalka oo ku jira dagaalka ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland wis xakameynaya mar walba wuxuu ku sugan yahay amarkii ka soo baxay xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee madaxweynuhu ku dhawaaqay ee ahayd xabad joojin in la sameeyo arintana wada hadal lagu dhameeyo